أسبوع ayaa laga joogaa kulankoodii koobaad waxba ma cusba waayuhu waa sidoodii kaliya maalin cusub ayaa soo biirtay waana axad 3 nin oo qaasin 4 ku yahay ayaa casar gaabkii aqalka xalwo isku soo beegay cod aysan hore u aqoonsan ayaa kor ugu qayliyay wareerkiyo waa baaq anshax suuban laga soo dhigay oo ku qotoma hadalka eebe ee ahaa guryaha iridahooda ka gala iyaduna durbadiiba waa ay fahantay qaasin wadaadkii tuulada iyo 2 shuhuud inay yihiin inta ay fadhiga hagaajisatay ayay si diiran u soo dhaweysay iswaraysi dheer iyo kaftan kadib meherkoodii ayaa sidii ku qabsoomay si walba oo ay xalwo u daaweyntahay haddana dareenkeeda cabsida iyo walwalka isugu jira waa midkii ay qabtay dadabgalkeedii koowaad balse caruusku ninkii hore oo kale ma aha waa oday qoobash ah oo xinne ku qarinaya madaxiisa booshka ah meherku xoolihii badnaa ma aha ee qaalin qurax ayaa lagu meheriyay iyada lafteedu shabadii dumaalkeeda raggu isku dilay ma aha ee waa habar cududuhu dabceen alalaas iyo buuqtoona ma jiraan sida gool iyo aar kayn fog qoysku ah ayay u aqal galeen muddo yar kadib qaasin kama ilbuuxsado wejigeeda marmar dhif ah ayuu dhabanadeeda sida mardooyinka ardaaga u dabcay u dhowraa isagoo haybad iyo burji aan ka muuqan iska doonaya waa 2 qof oo lama filaanka noloshu midba cirifka ka keenay balse qof walba kaalin ka maqnayd ka kale ayuu u buuxiyay nolol wada jir ah misane kala baxsan ayay isaga iyo xalwo ku wada nool yihiin inkasta oo aysan sheeko wadaag ahayn haddana aad ayuu ugu reystay daryeel wacan ayuuna ka helay intii ay wada joogeen xanuunada uu qabo iyo ciladaha kiciya ayay weelaysay sababtaas awgeed ayay shaahiisa sonkortu idiqabadka ku tahay gaar ugu karisa milixdu maadaama aysan labadoodaba u roonayn wada jir ay isaga ilaaliyaan dharigoodana way ka xarimeen sidoo kale dufanka badan inuu ku bukoodo ay ogtahay booskii duxdana caano lis ah ayay ugu bedeshay xalwo waa baayic mushtar marmarka qaarna waa ay hilibaysaa oo neef ay saalax weeto ku soo qaadatay ayay qashaa farqiga weyn ee labadooda kala geeya waa furfurnaanteeda iyo xirxnaantiisa si kasta oo uu aamuskiisu dhalan u yahay haddana nin duubiyada cadho buuxisay ayuu u muuqdaa goor iyo ayaan iyana kama jiidho mana diiqad geliso kolka uu sheeko maago inta uu agteeda doonyeysta ayuu u waayo waramaa iyana waa ay ka dhurtaa labadoodaba waxa ay qalisan yihiin in guurka qura ee xilkasnimada ku dhisan uu yahay midka ay hadda yagleeleen wixii ka horreeyeyna ay ahaayeen degdeg iyo geedi sahan la'aan guuray fankii kalgacalka ee Eric Farum ka hadlayay ay ka dhabeeyeen miisaanka jireed ee fuulay qaasin iyo xasiloonida ka muuqata doodkiisa waxaa ku qarsoon qalqaalnimo iyo aabi ku duugan waayihii tagtada ee uu soo noolaa 70 sano uu jiro waxa uu ku soo gaaray waa baadigoobka gobonimada iyo qabka laga bilaabo dharaartii uu askarinimada Ingiriiska qortay isagoo geel soo arooriyay kaliya si uu u xifaaleeyo geeljarihii uu yaqaanay ee kaakiga dabagaabka iyo qoriga rivalka ah uu ku arkay sidii ayuu dibbo ku galay saanacadkii uu habaarka u yaqaanayna abaan ugu noqday isla jeerkaasna isagoon ujeedo kala hayn uu uga qayb galay dagaalkii labaad ee adduunka oo uu la safnaa colkii Ingiriiska ee Burma ka dagaalamayay in badan buu xulad naareed dhex orday goobaas oo laysu jalib dhigayna dhuuca u galay isagoo oo hibinaya raganimada sidii uu qaabilba raganimo uga dhex arkay dilkii walaalkii ayuu qaasinaa eelka sharka marar badan ugu bambaxay isaga oo nagaanshaha liidnimo u arka tooxsiga iyo qabkana muunaynaya da'dan uu jiro waxa uu ku soo gaadhay biimo weligiina noloshiisa kama salayn weydiimaha sabab sidee iyo maxaa xigi doona geeljiranimadiisii askarinimadiisii iyo gadaashii oo uu rubcu qarni in ku siman badmaax ahaa wuxuuba waxay ku dhaceen si shil ah oo bilaa sabab ah waxyeelo gaadhay iyo mid uu geystayba
waa uu ka nool yahay caawa isagoo da-ah, lugihiisuna qaadila ay yihiin ayuu bakoorad ku taagsanayaa. tixgelinta ugu weyn ee ay bulshada iyo isagu isu hayaanna waa sheekadaas baas ee uu darteed wax walba u falay. waa hantida qura ee mood iyo noolba u dhaxday, balse waa uu ku fara adeygaa in la qodqodo mooye aad uma sheekeeyo. marmar ayaase galo loo dhan yahay keligii loo dhagraariciya. aadamuhu iskuma raacsanaa gobonimada, oo shayga ay ummadi nafteeda kala qashafto ayay ummad kale ku dhaadataa. sidaas ay tahay, dhofsanayaraha mideeya gobonimada guud ee insaanku waa sadqaynta uu qofku u loogo doonistiisa dhalanka ah. deeqsinimadu waa saboolnimo loo kasay, waana cagsiga doonistii dhalanka ahayd ee kaydsiga iyo damciga qofka. sidaas ay tahay, mandiqa gobonimada marka lagu fiiriyo, deeqsinimadu waa fal curfi ah oo la isku booriyo. geesinimadu iyana waa qurgooyo caddaan ah, taasoo khilaafaysa doonistii nololeed ee qofka. haddana sidaas ay tahay, waa fal gobonimo oo sharfan. marka sidaas loo dhigo, suudiga laftiisu waa silic bareedh ah oo qofku kaga fogaanayo kolkoolinta iyo raaxada nafeed. balse 3 jeerba geesinimada, deeqsinimada iyo suudigaba waxaa milgaha u yeela waa dhiiranaanta qofku doonistiisa ku khilaafayo, abaalkii naftiisana uu ku doorsanayo tixgelin qaayasoorada bulshadiisa. kolkii uu Albert Camus lahaa dadku waa noolaha qura ee diidan gadda uu u dhashay, waa suura inuu niyadda ku hayay isdiidada gobonimada iyo dabeecadda dhalanka ah ee aadamaha. sidaasi la mid ah, qaasin cimrigiisa intii badnayd waxa uu dhex ordayay diilinta nolosha iyo geerida kala xadaysa. hirka noloshu marba dhanka uu u wado mooye dhanka kale ayuu jeedaalinayay. marka qura ee sida ay noloshu u taalo uu u noolaaday waa hadda oo da-du loodisay. tacabkiisii uu waxla-aanta ka joogo inuusan qoomamoon ayuu gobonimo u arkaa. meerta fudud oo dabiici ah ayuu laasimaya. cirkoo xidigo leh ayuu safka hore ee mawlaca iskaga sii wardiyaa. dabadeed gaanfaydhka waa beriga iyo wacaal doonashada ayay maalintiisu ku bilaabataa. haddii uusan war magaalada ahi siyaado ahayn, BBC-du waxay sheegto ayaa lagu shaah cabaa inta qoraxdu kasoo kululaanayso. intaa kadib, qof walba kaalin gaar ah oo uu tuulada kaga jiro ayuu ku foofaa. in qof reer magaal soo ahaan jiray uu tuulo badkeeduba masaafo kooban yahay cimrigiisa ku qaato, kuna qanacsanaado, waa nolol dulqaad iyo soohodinimo ku idashahay. kaliise kuma aha oo duqeytida ayuu kala mid yahay bartiyaqaannimada iyo saahidnimadaba. intii uu gaboobay dhowr jeer oo caafimaad darro tuulada looga qaaday, intaba nafsad ahaan ayuu u sii bukooday oo xaalad u eg midda uu galo neefka dibbooda ee halista bannaanka ugu baxa ayuu la darsay. taasi waxay tusisay in wadajooga waayeelku uu ku fadhiyo macno nololeed oo ka xeel dheer bariidada iyo sheekaysiga ay laasimeen. waayo in qofaf dhowr ay jiil dhan keligood ka hadhaan waa rafiiqnimada xadka ugu dambaysa. oo kolka uu waayeelku dhinaciisa ka waayo cid la fil ah adduunyada inay uga soo dhammaatay ayuu fishaa. waase ogaal ay inta badan naftu diido inay garwaaqsato. oo ma waxaan la diidinba in qof gabagabada noloshiisa hilaadiyo, siina qooraansado booraamaha wadku ka shalwin doono. sababtaas awgeed ayay kaftanka, sheekada iyo shaxda isugu maaweeliyaan isaga iyo lodkiisuba. xalwo howlaha guriga waxay la kaashataa basra yar. xalwo howlaha guriga waxay la kaashataa basra yar oo gacan yare u ah. ayna ayayow tahay waqtigeeda gaarka ahna waxay ku qaadataa agaasinka sitaadka. waa sikhiyad gacan furan oo shaadaali iyo udub wixii ay hayso aan hagran. waana buuni dhalad ah oo tixgelin ku dhex leh bilista tuulada. muddo aad u dheer ayay jagada khaliifadda sitaadka haysay, waxayna ku kasbatay qasaa'idka iyo nebi ammaanka badan ee ay xifdisan tahay.
qaarkoodna ay iyadu tirisay. Sitaadku waa fan, waa diin, waa aftahanimo, waa naskii diinta ee afka qalaad ku qornaa oo sida ugu fudud loo dhigayo. Waa sababta iimaanka habruhu runta u yahay ee erey walbaana qalbigooda u raadayn og yahay. Magaca Maxamed iyo jacaylkuna ay isugu lamaan yihiin, qiyaamaha iyo aakhiro ay uga qiiroodaan, nolosha iyo geeridana ay ula khushuucaan bilistu. Cod hallaasi ah oo jiib iyo jaani ku laran tahay ay eebbe ku baryeen iyagoo wada jir u leh. Ilaahay badda meeriye buuraha ku dhaabo, adigaa lagu baryayaa boqorka weynow. Ilaahan baahan ee loo baahan yahayo, adigaa lagu baryayaa boqorka weynow. Waayuhu aad ayuu isu qorayaa. Durba aqalgalkoodii 5 sano ayaa laga joogaa. Waa uu sii gaboobay Qaasin. Camal xumaan iyo dabci baasaysi ah oo aan sababtiisa la aqoon ayaa ku soo biiray. Baalashiisa cirraystay iyo indhihiisa sida maqorka u guray meel kasta oo ay eegaan fariin taban iyo walaac uu in badan la rafaado ayuu ka taransadaa. Waxyaabo aan sii ridnayn ayaana cabsi geliya, sida ardaaga aqalka ee sii ciiraya, doorsoonka dhismihii tuulada ku yimid iyo daaraha dhagaxa ah ee mutulayaashii bedelay. Guud ahaan wax kasta oo sidii uu ku yaqaanay iska bedelay. Dhiilo hor leh ayay duunkiisa ku abuuraan. Sidii uu nagaansho u damaanad qaadayo waaritaanka naftiisa ayuuna casriga u neceb yahay. Walwalka ugu weyn waxaa ku haya waqtiga. Waxa uu joogaa gabagabada qarnigii 20aad, guga soo socda ee tirsiga qarnigu buuxsami doono. Saadaal ragmasho ah ayuu ula muuqdaa. Inkasta oo uu digrigiisu badan yahay, haddana waxa uu ku qarwaa dad uusan maalinimada xusuusan, sida saaxiibadiisii ay badmaaxyada wada ahaayeen, askartii ay kaymaha Barma ka wada dagaalameen, iyo noloshiisii geeljirnimo ee intaba ka horreysay. Dhowr habeen oo uu si fiican u seexday kadib, habeenkii 5aad ayuu si qabow oo eedaad iyo rafaad toona lahayn u go'ay. Xalwo oo raagsatay hurdada uu ku daahay, ogna salaadii uu webarka tukan jiray inay ka caddaatay ayaa isoo kor taagtay. Raqda culus ee furaashka dhex waran, indhaha ayuu isku haystay sidii qof riyoonaya. Dhanka midig ayuuna u jiifay sida uurjiifka, ayuuna jirkiisu isu gashanaa. Gadh coof ah iyo cirro teelteel ah oo shafka kaga taallay mooye jirkiisa inta kale taaro waaweyn oo soo dabcay ayay ahaayeen. Ogaalka geeridu waa tallaal dadku siga caabiyaan xuqda ku lamaan marka qofku go'o. Sida meersool oo kale ayay u fikirtay inuu waaye lahaa, inuu bukay iyo in aysan ahayn markii koowaad ay la kulanto. Geerida sayga intuba waxa ay ka saacideen inaysan aad u nixin. Cabbaar ayay si kalgacal leh uga bogatay wejigiisa saanta qalalan ah, sidii qof beri fog dhintay ayayna ka soo qaatay. Maalin weyntii kolkii la gaadhay ayaa duugtiisa la isdhaafiyey. Maqaaxidii ugu soo wardoonan jiray Qaasin, isaga ayaa war u ahaa. Maalintaasna lagu shaah cabayey. Xabaal xagaafka agtiisa ku taal ayaa loo qoday oo xuskulo yaryar looga taagay. Si kama dambays ah ayuuna magaciisu ba'ay, maadaama oo uusan wax ubad ah ka tegin. In badan ay xasuustiisu qalbiga Xalwo ka sii qoyanayd. Jimce walba kolka ay si taadayso way u durraami jirtay qasiido beertaabad ah oo ay isaga ula jeedo macnaha noloshana ka run sheegaysa ayayna ku celcelin jirtay. Uuda maydka la sii sidiyo ololuu aroosyada maaragteen, wiil baa dhintay, wiil baa dhashay, ku dhammaanaynaa sayn u dhoobannahay. Dhammaad waa sheekada Cirro Gilgil qaybtii u dambaysay oo uu qoray ama curiyey Warfaa Beyle. mahadsanidin.